الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوهم في المضاجع أو كما قال صلى الله عليه وسلم. daahida aan niga daahnayna insha allah naga raalli ahaada lanna haweenku ragga way ka hawl badan yihiin. salaada nabigeenu calayhi salaatu wasalaam markuu tujinaya saxaabadiisa ayuu odhan jiray waxaan doonaa salaada inaan dheeraysta buu rasuulku yidhi sal alla alay wasalam, laakiin markaan xasuusto ilmaha ooyaya ee hooyadiina ay gadaasheeda ku tukanayso, dhibta markaa oo ilmuhu hooyadii uu ku hayo iyo walwalka uu ku hayo ayaan xasuustaa. daadna salaadii waan soo gaabiyaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. saasuu nabigeenu nii ilaalin jiray calayhi salaatu wasalaam. in layna ilaaliyana xaq baad u leedihiin, waayo haweenku waa masnac, waa warshad, waa madarasad, waa jaamacad, waa masnac weeyaanoo waxaa adduunka bashar joogo o dhan calooshiina ilaahay kusoo dhex abuuray. yakhluqukum fii butuuni ummahaatikum khalqan min bacdi khalqin fii dulumaatin 3 waa ka ilaahay lahaa. abuurka bini aadanka ilaahay markuu ka waramayey wuxuu yihi rabbigiin waa kayni uumay ay inagu sameeyey caloosha ma aragtaanay dhexdeeda. maraaxil badan baa ilaahay bini aadankan markuu abuurayo uu soo mariyey. marka hore waa nudfa, waa biyo yar oo riximka dhex oolaya 40 maalmood. marka labaadna buu nebigu yihi sal alla alay wasalam waa xinjir yar oo dhiiga. marka saddexaadna buu nebigu yihi waa waslad yar oo hilibo weeyaan. abuurka markay bini aadanku ay marayaan ilaahay wuxuu yihi 3 mugdi hoostooda ayaan bini aadanka kusoo sameynay buu ilaahay yihi. caloosha dhexdeedu waa mugdi, waa madow. riximka dhexdiisu waa madow, haddana ma dheertiiba ku duubanoo iyada hoosteeduna waa mugdi, waa madow. bini aadankan halkaasaa ilaahay kusoo abuuray. ama makhluuqa bini aadanka kuwa saaniciinta ee wax sameeya markay wax isku hagaajinayaan meel iftiinay la eegtaan. ka saacadaha hagaajinaya meel iftiinuu saacadda ku hagaajiyaa. ka mobeelka hagaajinaya meel iftiinuu wax ku hagaajiyaa. ka injineerka aqalada dhisaya meel iftiinuu wax iyuu ku shaqeeya wax ku qorqoraa. walaakin ilaahay casa wajal isagu waa abuura weeyaan, waa khaaliq. inuu ina sameeyana iftiin ilaahay ka u baahan maahee 3daa mugdi maaragtaane hoostooda kaynagu soo abuuray waa ilaahay tabaaraka wa tacaala. meesha bini aadanka lagu abuurayana dee waa haweenka ilaahay jala wacala riximkooda ilaahay ka yeelay. haddana markay hooyadu ilmihii ay qaaday ay dhashana waxay noqonaysaa murabiyad oo iyadaa ilmihii korkorinaysa oo barbaarinaysa.
haddana mucalimad bay noqonaysaayoo ilmihii marka dambena iyada ayaa tarbiyadeynaysa. marka bini aadankan ilaahay caza wajalla ayaa abuuray. ujeedada ilaahay adduunyada noo keeno noogu abuurtayna waa cibaadadiisa weeyaan. ilaahay inaan ilownana maaha. yaa ayuha alinsaanu maa garaka birabbika alkariim. yaa ayuha alinsaan, kan ilowshaha badan lahow baa ilaahay yidhi, maa garaka birabbika alkariim, rabbigaagii kariimkee deeqsiga ahaa maxaa kaa mashquuliyay cibaadadiisii oo kaa dagay? maxaa ilaahay kaa dagay? ma ilmahan aad dashay baad ilaahay ku ilowday? ma ninkaagan zawjkaagaad ilaahay ku halmaamtay? ma ziinada adduunyada ayaad ilaahay ku halmaamtay? inaa jacalnaa maa cala alardi ziinatan lahaa linabluwahum ayuhum axsanu camala. inaa jacalnaa, ilaahay baa annakaa ka yeelnay, inaa jacalnaa maa cala alardi, arlada korkeega waxa yaallo oo dhan, ziinatan lahaa, adduunyadaan ku qurxina baa ilaahay yidhi. linabluwahum ayuhum axsanu camala, ayakana bini aadankana waxaan ku eegaynaa oon ku ikhtibaaraynaa baa ilaahay yihi kooga camal wanaagsan ka shaqeynaya. daaraho adduunyada ka dhisani waa imtixaan. ubadkeenna quruxda badan le een haysano waa imtixaan. aqalkaada iyo materiyaalka dhex yaalla waa imtixaan. ziinadan adduunyada oo dhan waa imtixaan. almaalu walbanuun ziinatu lxayaati ddunyaa. awlaadiina baa ilaahay yidhi iyo maaragtaan xoolihiinu waa noloshan adduunka unbaa lagu qurxiyey, wax kale maaha baa ilaahay yidhi. waalbaaqiyaatu saalixaatu khayrun cinda rabbika hawaaban wa khayrun amala. baaqiyaat waa subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar. adkaarta iyo qur-aanka akhriskiisa iyo sadaqada lala baxayo iyo salaada lagu dadaalayo iyo shareecada ilaahay lagu dhaqmayo, taasaa inii baaqiya baa ilaahay yihi. waxa la hidideelayana taasaa ugu khayr badan baa ilaahay yihi caza wajalla. ama waxaan agagaarkeena ku hareereysan, hadday tahay zawjka iyo hadday tahay inantaada dhashay iyo inanka aada dhashay iyo awlaadaada, waxa o dhan waa ziinat alxayaati ddunyaa. noloshan adduunyada unbaa lagugu qurxiyey mooyaane wax runa maahine waa wax beenbeene ogow, waa dhallaanteed. adduunkan markaan qofku walba uu imanaya keligiibu hooyadii ka soo baxay, deedna markuu koray uu barbaarayna ninkiina gabadh buu eegeegto uu jeclaaduu guursaday, gabadhiina iyaduna nin bay doorato way guursadeen. haddana labada maalintay isguursadeen waa la qoraayo taariikhda way qoran tahay, oo qof walba taariikhda caruuskiisu waa u qoran tahay. haddana deedna haddii ilaahay awlaad uu ku deeqayna ilmihii u horeeya u dhashay waxay u bixiyeen waa curadkii iyo curadii weeyaan. haddana ilmihii labaad waa curadkii labaad ama waa curadii labaad. imisaad ubad leedahay? labaan leehay, 3 baan leehay, 4 baan leehay. oo ma jirin marka hore adigu keligaabaad ahayd, ninkaaguna keligiibuu ahaa. ubadkana markaa way nagu soo biirbiireen. marka dambena mid sida dadku u dhimanayaan ayaa qoysas dhano waxaa iman doona qofna uusan ka harin oo dhammaaday. maa garaka birabbika alkariim, ilaahay ku abuuray ee meesha caloosha riximka dhexdeeda kugu soo abuuray 3 mugdi hoostood, maxaad ku iloobaysaa ilaahay? ma ilmahagaad ku iloobi? ma ninkaadaad ku iloobi? ma qaraabadaadaad ku iloobi? ma ziinada adduunyada ayaad ku iloobi? may adduunyadan waxba ma yaalaan, waxba ma yaalaan. meesha ay wax yaalaan waa aakhiro weeyaan. kun fi dunyaa kaanaka gariib aw caabiru sabiil buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam. adduunyada waxaad ku hataa qof gariiba. gariib waa qofka dhulkiisii aanan joogin, ama qof jid ka tallaabaya ku ahow. wadada imika buundada waa la maraa, baabuurtu way martaa. hadduu qofku yidhahdo bariishka dusheeda ayaan gogosha intoo qaato aan seexanayaa, waa majnuun baa la odhan. qofka waalana markaa dadkiibaa u fayowo inay qaataan ay xidhxidhaan weeyaan. hadduu qofku adduunyada dhex seexdo adduunyada ismoodsiiyo inuu isagu leeyahay, qofkaas waa qof waalana, qof dhammaystiran ma aha. marka adduunyadan dadkii wan wanaagsanaa qoloftooda adduunka dul taallay
laakiin qulubtoodu aakhirada ayay u jeeday ogaada jirkooga unbaa adduunyada dul yaallay bas ama qalbigoogu xagga aakhirada u jeeday qur-aanka ilaahay kaga warramay rag keliya qur-aanka lagagama warramin xataa haweenkana waa laga warramay ogaada maryamaa qur-aanku ka warramay caaisha binta abi bakar buu qur-aanku ka warramay khadiija radia allahu canha umulmuuminiin buu qur-aanku ka warramay zaynaba ayuu qur-aanku ka warramay oo qur-aanka lagu sheegay zawaajkeegiina qur-aanka lagu sheegay zaynab binti jaxshin radia allahu canha maryam binti cimraan imra-atu cimraan markay aragtay dalkii ay ku noolayd oo nuqsaan diineed ay ka dhacday oo masaajidii oo cidlaa oo qof diinta ku baranaya masaajidii laga waayey oo ummaddu adduunyadii xaggeeda u jeesatay markay aragtay ayaa nidar waxay gashay tidhi inii nadartu laka maa fii badnii muxarara fataqabal minii inaka anta asamiicu alcaliim ilaahow nidar waxaan ku galayaa ilmaha calooshayda ku jira inaan diintaada uga dhigi doono waqaf diintii waa kaa laga sii jeestay ee laga yaacay dhabarka loo jeediye ilmaha aada isiisay waxaan ballankuugu qaadayaa inaan masaajidka masjid al aqsa la yidhahdo intoon geeyo oo halkaa camari doono diintaada ka shaqayni doono dadna ilmihii ay filaysay wiil inuu noqdo laana inta badan dee nebiyadu wada wiilo rag bay haayeen gabadh nebiyada qur-aanku ma sheegin raggu ayuunbaa ilaahay nebiye kasoo dhiganayay wamaa arsalnaa min qablika min rijaalin ilaa nuuxii ilayhi wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaalan nuuxii ilayhim fasaluu ahla dikri waa ka ilaahay qur-aanka ku lahaa ambiyadii lasoo diray oo dhan rag bay haayeen iyaduna markaa wiil bay u malaynaysaa caloosha inay ku sidato laakiin waxay dhashay maryamo ayay dhashay markaabay ilaahay berido waxay ku tidhi wainii uciiduhaa bika waduriyataha min ashaytaani arajiim ilaahow anigu dee marka hore waxaan moodayay wiil inaan wadee laakiin gabadh baa ii dhalatee gabadhaasina maaragtaane iyada iyo duriyadeedana waxaan kaa magangeliyey inaad shaydaanka taabashadiisa aada iga ilaalisid ayaan ku baryoon kaaga magangeliye ilaahow iiga magangeli bay ku tidhi dadna markaasa ilaahay ducadeediibuu ka aqbalay maryamo baa layidhi iyo nebi ciise waa labada qof ee adduunka markay yimaadeen uunan shaydaan uunan taaban baa rasuulku yidhi sal allahu alayh wasalam oo qof kasta oo dhasha markuu dhasho waa ka baqaaq ilmuhu u ooyaa marka u horeyso adduunka yimaadaba shaydaankii raacayay ee qariinka ahaa ee qur-aanka lagu sheegay ee la saaxiibayay ayaa taabanaya walaakiin maryamana ma taaban shaydaankaasi baa layidhi inankeedii ciisabna maryamna shaydaankaasi ma taaban oo ilaahay baa uga ilaaliyey wainii uciiduhaa bika waduriyataha min ashaytaani arajiim leanna hooyadood maryamo hooyadeed iyo aabaheed baa dad wanaagsan bay ahaayeen dad wanaagsan oo diin leh oo masaajida camira oo awliyaa oo ilaahay u dhow bay ahaayeen oo ilaahay xidhiir fiican la leh ilaahay ducadoodii maaragtaane dhulka ma dhigine waa loo aqbalay ducadoodiiyo maryamo iyo ilmihii nebi ciise ee marka dambe ay dhali doonto ilaahay uga ilaaliyey baa layihi shaydaanka inuu ka taabto maryamo ilaahay wuxuu ku arsaaqay walad bilaa aabaa waa nebi ciise calayhi salaam laanna ilaahay waa sidoo doona yeela weeyaan aadam calayhi salaam caro keliya ilaahay ka abuuray xawana ilaahay waxau ka abuuray feedhii nebi aadam buu ka abuuray nebi ciisena bilaa aabbaa ilaahay abuuro ummu ciisa ayaa ilaahay ka abuuray caloosheedii maryama basharka kaleo dhanna waxaa laga abuuray laba waalid dhexdooda laga soo saaray deedna maryama waxay noqotay gabadh ilaahay cidhiidh fiican la leh xidhiidhka ilaahay la lahayd wuxuu gaadhay heer cuntaday cunaysa in samada looga keeno inaku waxaan u haysanaa un ragga un ina awliye noqon karaan ya ragga un culamo noqon karaan oo ragga un ilaahay u dhowaan karaan may gabadhaasina gabadh saalixadoo taqiyadoo ilaahay cilaaqala labay ahayd bal qur-aanka ayaa sheegaya malaaigta hadalka malaaigta ay maqli jirtaa la yidhi malaaigtu maryamo hadalka malaaigta way maqlaysay waid qaalat ilmalaaikatu yaa maryamu qnutii lirabbiki wasjudii warkaci maca araakiciin waa ka ilaahay qur-aanka ku sheegay uqnutii lirabbiki rabbigaa adeec baa lagu yidhi
وإلهي بري وأضيع وسجود والركوع maaha qur-aan waxa ku soo degaya laakiin malaa'igta ay cilaaqo la yeelataa la yidhi cibaadadeedii iyo taqwadeedii iyo diinteedii iyo xishoodkeegii ayaa qima halkii u sarreysay buu gaadhay deedna markaasaa malaa'igtii baa looga qaaday daahi baa la yidhi daahi kashfigii deedna qur-aanka lagu magac dara suuradan suuratu maryama daa'iman qur-aanka waxaad nebiyana qur-aanka waa loogu magac daray oo nebi maxamed suuratu muxamed baa loogu magac daray nebi yuunus suuratu yuunus baa loogu magac daray ibraahim suuratu ibraahim baa loogu magac daray nuux suuratu nuux baa loogu magac daray suuratu maryamana qur-aanka way ku taallaa iyadana maryama ilmahay dhashana ilaahay nebi buu ka dhigay nebi rasuul ah oo reer bani israa'iil loo diray waa nebiga keliya adduunka 2 goor yimiday baa la nebi ciise horena uu u yimiday aakhira zamaankana uu soo degi doonaa oo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa nebi ciise ayaa korkiina kusoo daadegi doonaa isaga oo maaragtaane 2 malag garbahooga saaran buu arlada iman doonaa shareecadda islaamku adduunka oo dhan yuu gaarsiin doonaa buu rasuulku yidhi marka gabadhu inay muuminad noqoto oo ilaahay u dhawaatay cilaaqo la yeelato yaa ka mancinaya gabadhu inay daaciyad noqoto ayaa ka mancinaya gabadhu caalimad inay noqoto ayaa ka mancinaya asxaabu rasuulillahi sal allahu alay wasalam masaa-isha xadiidka ay masalada isku qabtaan caaisha la weydiin jiray ibnu mascuud marka loo yimaado ayuu nid ordo caaisha soo weydiiya ibnu cabaas baa su-aal la weydiinayay ummuna caaisha ordo soo weydiiya kii u yimaadee su-aal weydiiyena wuxuu ku odhan jiray caaisha ma u tagtay haa maxay su-aasha kaaga jawaabtay sidaasay igu tidhi waa siday tidhi weeyaan mawduuca ay caaisha ay ka hadasho fiqiga hadday tahay xadiidka hadday tahay tafsiirka hadday tahay saxaabadu kama daba hadlayn khalaas kamay daba hadlayn marka inakoo haweena waa ka shaqo badan tihiin ragga oo aqaladii iyo ubadkii iyo mas-uuliyad daakhiliya oo aqalada dhexdeeda ininka ini saaran haddana waxaa laynaga rabaa inaad ku mashquulin maaragtaane oday iyo raaligelintiisa keliya iyo ilmaha u adeegidooda keliya inaad ku mashquuline adigoo dharigii karinaya dharkiina maydhaya ninkaadiina raali gelinaya ilmahaagiina tarbiyadda wanaagsan ku tarbiyadeynaya ayaa lagaa doonaya inaad haddana ilaahay xidhiidh fiican la yeelato sidii gabadhii saalixadda ahayd ee la odhan jiray rixlat alcaabida habeenkii ninkeedu markuu intuunan iman maskiidka ku maqan yahay ayay dhar aada u qurux badan intay sii xidhatay isku diyaarin jirtay baa la yidhi deedna marka uu soo galo ayay ku odhan jirtay hayta laka yaa sayidii iwaykane waa kuu diyaar baan ahay bay odhan jirtay diyaar baanu ahay khidmadaada iyo raaligelintaada markaasuu odhan jiray habeenka uu yidhahdo waan daalanaho aan seexanayaaye adiguna iska seexo iska nase markuu yidhaahdo dharkay isaga ugu labisanaysay intay saartay meel fiican ku laalaabato ayay dhar waxay xidhanaysay adag oo maaragtaanay baaliya deedna aqalkeyga meel yaroo dusha ayay ku lahayd ay fadhiisan jirtay halkaasee markaa salaata leylka ay bilowdo xilliga ayaa salaada fajar loogu eedaami jiray iyadoo ku geeraaraysa oo leh ilaahayow xidigihii waa kaasoo way daateen habeenkiina mugdigiisii xaggaabuu kasoo ziyaaday maalinkiina xaggaabay ka dhabar jeedisay boqoraduna albaabadoodii way xidheen qof walba albaabkiisii hoosta ayuu ka xidhay qofba qofkuu la jeclaana sariirta dusheedu kula keliyoobe yaa rabbi anigu adigaan ku jecelahe albaabada naxariistaada iga furo toobadda iga qabal bay lahayd gabadh kaleo iyadna addoon bay ahayd addoon oo sayid bay nin bay markaa maalqabeenee addoon u ahayd addoontii markay ninkeeda habeenkii u shaqaysay u adeegto ayay ku odhan jirtay wax kalood iga baahan tahay ma jiraan maya deedna markaabay ilaahay baryi jirtay su-aal bay weydiisay ku tidhi yaa sayidii horta adigu sayid ma leedahay haa sayid waan leehay oo adi sayidkaaga waa ayabay ku tidhi markaabuu ku yidhi waa rabbigayba aniga ii sayida markaabay ku tidhi dee sayidkaagu ma seexdaa maya ma seexdo dee rabbigaagii ku abuuray hadduunan seexanaynin adigoo addoonkiisiiya seed habeenkii u seexataa bay ku tidhi anigu adigaan addoon ku ahay bay ku tidhi intaa aada soo jeedo hurda ii iman mayso laanno adigaa aniga maaragtaana isoo gato isoo iibsaday waa berigii dadka addoomaha la gadan jiray la iibsan jiray
adeegaaga ayaan heegan u ahay ilaa aad seexanaysana ma seexan karee adiga sayidkaagii maadaama ood leedahay ma seexdo wuu soo jeedaa seed u seexataa bay ku tidhi subxaan allah kelmadda ay ku tidhi ninkaas ayaa qalbigiisa ilaahay bedilay habeenkaasaa ugu dambeysay hurdo baa la yidhi isaguna wuxuu bilaabay inuu habeenka wixii ka dambeeyay ilaahay la munaajoodu salaata leilka u kaco marka gabadha muuminadda ilaahay waxay kaga xidhmi kartaa gabadhu aqalka dhexdeeda halka ragga la doonaya masaajida intay tagaan inay jamaca masaajida ku tukadaan ininka salaadiini waa aqalka dhexdeeda weeyaan diin barashadiini waa aqalka dhexdeeda weeyaan tarbiyadii awlaadda waa aqalka dhexdeeda weeyaan waqarna fii buyuutikuna baa la yidhi waa xijaabka u horeeya gabadha muuminada laga rabo waa inay gabadhu noqoto gabadh gurigeeda ku ego gurigeeda joogta gabadh reer madiina oo ansaariyada ayaa nabigeena u timid calayhi salaatu wasalaam markaabay ku tidhi yaa rasuul allah salaada inaan kula tukado oo masjidkaaga ku tukado oon galaashaada ku tukadaan jecelahay bal ka waran markaabuu nabigu waa khayr laakiin sida anood igula tukatay masjidkayga waxaa kaaga khayr badan buu nabigu ku yidhi adoo ku tukada maaragtaane aqalkaaga dhexdiisa ku tukada kaaga khayr badan buu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam falidaalika hooyooyin iyo walaalahay baa tihiin waxaan isku baraarujinaynaa haddaan doonayno liibaan iyo raaxo iyo horumar iyo khayr haddaan doonayno dadkii war wanaagsanaa inagu horreeyay waa inaan ku dayno weeyaan mathal dad waxaad haysataan inia maaragtaan exambaler mathal dad mathal aad haysataan islaamnimadu waa diin cajiiba way noo qoran tahay siiratu saxaaba iyo siiratu saxaabiyaat cahdigii nebiga gabdhihii adduunka joogay siiradoodii baa laynoo qoray cikrima ibn abi jahl saxaabiga la ohan jiray allah raalli ka noqday abi jahl baa dhalay abu jahl waad garanaysaan waa fircawn hadihi اlumma waa fircoonkii ummadda nebi maxamed inankiisii weeyaan markii uu maqlay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii ayaa magaalada maka ku soo socdo kusoo duulay u dhunto u baxsaday baa la yidhi wuxuu damac u go-aansadayba inuu jaziirat alcarab intuu ka tallaabo uu badaha ka tallaaboba xaaskiisii zawjadiisii umu xakiim radia allahu canha ayaa maqashay markaa ninkeedii inuu firxay uu baxsaday deedna markaabay nebiga u timid calayhi salaatu wasalaam deedna markaabay ku tihi yaa rasuula allah waxaa igu maqala bay tihi cikrima adiga ayuu kaa firxay oo uu baqayaaye hanu yeedho han soo qabtee oo islaamnimada ha ilaahay ha ku deeqo ha islaamee yaa rasuulallah ninkaasi nabad ma la siino ma la nabadgelinayaa markaabuu nebigu uhi huwa aaminun biamaan illah haa nabad waan siinee oo ilaahay nabadgelyadiisiibuu haystaaye hadduu ku yeelayo orodoo soo kaxeeyo ii keen buu rasuulku ku yidhi sal allahu alayh wasalam bal gabadha muuminaddu siday ninkeega uga fikiraysa eeg ghulaamkeygiiba soo kaxaysatay ghulaamku waa addoonkeygii baa markaa jidka intay kusoo jireen ayuu damcay inuu faraxumeeyo markaasay sasabtay ku tidhi waxaad doonaysa waan kuu yeelaya horta meel hangaadhno reer markaa carbeed bay kusoo weecatay markaabay tiri ninkan waa addoonkaygii inuu dariiqa igu qasbo igu faraxumeeyo rabee ii qabta bay tihi markaas loo qabto waa loo xidhxidhay way soo socotay baa la yidhi waxay soo gaadhay shaati albaxr badda xeebta ayay timid markaa cikrima ibn abi jahl oo halkaa doon ka fuulay oo doontii uu fuulayna baddii ayaa kacday baddii baa kacday ninkii naakuudigii doonta waday ayaa yidhi akhlisuu markaasuu cikrima yidhi war ikhlaaska inaad sheegaysaan muxuu yahay markaasaa lagu yidhi waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allah dheh laa ilaaha ila allah dheh markaasuu yidhi maa harabtu ila min hada waxaaban ka soo firxayba waa kelmaddaa buu yidhi lanna carabtu zaman jaahiligii markay caafimaadka hayaan ee barwaaqada hayaan asnaamtay caabudayeen markay dhibaata ay la soo daristana ilaahay bay baryayeen waa ka ilaahay qur-aanka ku yidhi waidaa rakibuu fi lfulki dacwu llaha mukhlisiina lahu ddiin falamaa najaahum ila lbari idaa hum yushrikuun mar alle markay maaragtan maraakiibta iyo doonta ay fuulaan ee badaha dhexdooda maaragtan dabaylaha iyo baddu ay ku kacdo ilaahay bay baryada u baraxtiraan baa ilaahay yidhi ilaahay keligii bay baryaan
laakiin beriga markay yimaadaan cagaha dhulka ay dhigaan nabad ay dareemaanna shirkigiiyo gaalnimadii bay ku noqdaan baa ilaahay yidhi. dabeecaddaasi waa dabeecad basharku ay ka siman yihiin oo markay barwaaqadana bini aadamku way qooqaan, maalinta bini aadamka la yar qabtana ilaahay bay kusoo ordaan. waana sifadaasi waa sifo xun weeyaan, ma wanaagsano qofka muuminka iyo gabadha muuminada sifada lagama rabe ogaada. qofka iimaanka leh muuminka waxaa la doonayaa barwaaqada markaad haysatan ilaahay ku shukri, dhibaata hadday kula soo daristana waa loo sabraa, waa la adkaystaa. Cikrima marka dadkan ula socdon oo wada gaalo mushrikiin bay ahaayeen, markuu yidhi war ikhlaaskaad sheegaysaan muxuu yahay, markaasaa lagu yidhi war laa ilaaha illa allah dheh. wuxuu yidhi anigu kelmaddaa baan ka soo baxsaday buu yidhi. ha kelmaddaa baad ka soo baxsatay ha. deedna markabkiiba doontiiba la soo celiyey, xaaskiisiibuu markaa ugu yimid oo halkaa u taagan, umu xakiim radia allahu canha. wuxuu maxaa ku keenay maxaa ku keenay markaa bay tidhi adaan kuu socdaa, inaad naar ka badbaadid baan doonaya anigu. dee waa lay dili, lagu dili maayo. waxaan kuu geynayaa Muxamed calayhi salaatu wasalaam. Muxamed calayhi salaatu wasalaam rasuulka ilaahay ayaan u tegey oon ku idhi nebi allow Cikrimo ayaa kaa baxsaday in abi jahal, ee nebi allow ninkaa hala nabadgeliyo. uu ku nabadgeliyey nebigu calayhi salaatu wasalaam, isagaana iyagaa soo diray. weliba nebi maxamed fikradaad ka haysata maahayn sidaad moodaysee, basharka ilaahay abuuray waa shaksiga ugu dulqaad badan, ugu naxariis badan, ugu dhibrinta badan, ugu xidhiidhinta fiican. haddii la yidhahdo qaraabo iyo dad hala xidhiidhiyo, waa shaksiga ugu xidhiidhinta wanaagsan. hadday dulqaad noqotona waa shaksiga basharka ugu dulqaad badan. hadday noqoto maaragtaane baarinimona waa shaksiga bini aadamka ugu baarisan. hadday noqoto maaragtaane naxariisna khalqiga ilaahay abuuray waa ka ugu naxariis badan nebi maxamed sal alla alay wasalam. waa u sheegtay markaa, deedna way soo kaxaysay inta soo sasabtay. dhexdaa markay marayeen, ila waa xaaskiisiiye oo isagu wuxuu isleeyahy waad qabtaayo waa xaaskaagiiye. meelaha markay dhexda marayeen buu yar damcayo, deedna markaabay ku tiri ha ii soo dhowaan. wuu yaabay oo waa maxay, oo hiblaayo ma tihiin ha, oo ninkaagi maanan ahayn ha, oo xaaskaygi ma waan ahay, laakiin ma tihin Cikrimow adigu hadda mushrik baa tahay, aniguna gabadh muuminadoo muslimaan ho ima soo dhawaanaysid bay ku tidhi. gabadh muuminadoo muslimada ayaa nahay markaa ima soo dhowaan karaysid. iimaanku qalbigooga marka uu galo, cidday xidhiidhinayaanna markaaba way garanayeen, cidday goynayaanna markaaba iyaku way fahmi jireen. lanna kelmadan laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah shuruudeeda ayay markaaba tilqaa'iyan asxaabta nebigu ay baranayeen ay fahmayeen. waxay tihi waryaa joogso, islaantaadii waan ahaa hadda miyaa may, hadda waxaan ahay gabadh muuminadoo muslimada, adiguna nin mushrik oo gaala baa tahay, ilaa aad ka islaamaysa ima soo dhowaan karaysid. markaasuu yaabay, wuxuu ihi arrinkan maaragtaanay ii kaa diiday, iga kaa manciyey, wallahi waa arrin weyn buu ku yidhi. diintan islaamke ee iga kaa dhabaysa wallahi waa diin weyn buu yidhi. markaabay ku tiri waliba kii qulaamkee addoonkaagii ahaabaa dariiqaa damca inuu igu faro xumeeyo, halka reerka hadda aan sii marayna buu iigu xidhan yahay tiro waa la i xidhxidhay. intuu u yimiday buu qoorta ka gooyey baa la yidhi. markaas Cikrima markaa muunan islaamin, uu dilay ninkii baa la yidhi. magaaladii madiina, magaaladii nebigay u keentay calayhi salaatu wasalaam. markii nebiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam, nebigu uu soo dhoweeyey Cikrima, waa abi jahl inankiisii weeyaan, ayaana soo tashkiiliyo diinta islaamka ugu yeedhay, waa zawjadiisii. tacaawunka labada qof ee maaragtaani qoyska ka dhexeeya waxa ugu weyn ugu muhiimsan xidhiidhka ilaahay baa la rabaa marka hore inaan isku tacaawunno. inanka maanta waxaa laga yaabaa labada qof markay isguursadaan boqorshaha ugu horeeya ka tashanayaan waa maxay, aqal han dhisano, haye ciyaalkiina way noo dhasheen soomaha, han korsano, haye wax han barno, haye han dhoofino, haye mustaqbalkooga dambe ha ka fikirno. tacaawun way fiican tahay, lama diidayo inaad ilmahaaga wax bartaa oo ilmahaaga aada u tacabtaa, lama diidayo, diinta kuma diidano. oo nebigu sal alla alay wasalam saxaabiga waa kii ku lahaa, reerkaaga intaad ka tegi lahayd si cadow iyakoo fuqaraaya oo dadka dawarsanaya, waxaa kaaga khayr badan buu nebigu dho kuu khayr badan iyakoo akhniyaaya oo bini aadanka baahidooda ka deeqtoon inaad ka tagtaa kuu khayr badan buu nebigu ku yidhi. waa Sacd bin abi waqaas markuu yihi xoolahaygo dhan han wada bixiyo, ha bixin buu nebigu ku yidhi, u kala reeb, waxna la bax, waxna gabdhahaagiiyo ubadkaaga u reeb buu nebigu ku yidhi sala allahu calayh wasalam.
marka inaan ubadkeena u shaqeyno ma diidaysa diinteena islaamku laakiin tacaawunka ugu horeeya labada qof markay isguursadaan ugu horeeya ee la doonay inay ku tacaawunaan ay ku heshiiyaan waa ilaahay xadhigiisa inay wada qabsadaan inay diinta ilaahay ka wada shaqeeyaan inay diinta ilaahay bartaan laana adduunyadan meel la degan yahay maaha adigu waa dhiman ninkaaduna uu dhiman ilmahaagu way dhimanayaan meesha loo socdo waa la wada tegaya waa aakhiro sidaad adduunyadan ehel u ahaydeen haddaad doonay inaad reerkaaga iyo ubadkaaga aakhiro ehel u noqotaan inta adduunyada la joogo waa in ilaahay daacadiisa iyo diintiisa lagu dadaalo taasaa marka asal ah gabadh saalixada oo salafkii ka mid ahayd waxay ninkeeda ku tidhi ninkeedii markuu subaxdii maharadii iyo kasbigiibuu u baxo uu sii socday markaabay ka daba hadashay war maad baxday haa waan baxay buu ku yidhi markaabay tihi dhegayso fariin baan kuu sheegaya ittaqi llaha fiina bay ku tihi ilaahay nagaga cabso alla nagaga baq aniga ilmahayagaas aniga caruurteedaas gaajada adduunka waan u sabraynaa laakiin naarta aakhira u sabri kari mayne luqmad xaaraan aqalka iga soo gelin bay ku tidhi hooyo mu'minad saalixad murabbiyad ka fikiraysa mustaqbalka ubadkeyga waayo hadduu ninkaagu aad tiraadidu lacagun noo keen lacagun keen meeshaa doontaba ka keen oo lacagun keen haddaad tiraado oo lacagtaasi isagana dariiqay ka soo gashaba uu aaba yeeli waayo oo wixii hortiisaba soo maraba hafyowga uu soo siiyo uu adigii ku siiyo ilmahaaga siiyo reerkaasi waxay noqonayaan aqalkaasi awalan macsiya kasoo bilaamaysa macsiyo laanna risiq kasbi xaaraana hadduu aqalka soo galo ubadkii iyo reerka o dhan waxaa ka bilaamaya guriga macsiya ka bilaamaysa iyo tuqyaan iyo gaalnimo risiqa xalaashu daacaddu ayuu qofka u kiciyaa daacadda ayuu dhalaa daacadda iyo barakadu nolosha geliyaa risiqa xaaraan ubadka iyo reerka ku soo galaana baa la yidhi dadka macsiyadu ku dhirigeliya macsiyadu ku kiciya ilaahay ka baq bay ku tidhi aniga ubadkaygaas maarki gaajada adduunka waan u sabraynaa waan u adkaysan karaynaa waa maalmo yar laakiin cadaabka aakhira u adkaysan kari mayne luqmad xaaraana aqalka ha iga soo gelin bay ku tiri ilaahay ka baqo inakana maanta dee xaalkeenu halkuu maraya waad iska ogtihiin ii sheegi maayo dumar haweenka gabdho saalixaad oo wan wanaagsan oo ilaahay ku xidhan oo muuminaadana way jiraan oo masaajida wallahi intay yimaadaan ama culummada ay la soo xiriiraan ragga culummada weydiinayo oo ku leh ninkaygii ma tukadee maxaan ka yeelaa ubadkaygii ma tukadaana maxaan ka yeelaa ninkaygii masaajida ma imanaya maxaan ka yeelaa gabdho dareenkaa qaba way jiraan laakiin maanta inteenna badan maanta xagga khayrka waa ku yarnaho xagga sharkaan u badannahay maanta marka ilaahay hanu soo noqono han toobadkeenno cikrimo radia allahu canhu islaamnimada inuu soo galo waxaa sabab u noqotay waa xaaskiisa cumar bnu khadaab radia allahu canhu diinta islaamka inuu soo galo waxaa sabab u noqotay waa walaashii faatimata bintu khadaab maka markii la jooga cumar seefta intuu soo qaatay buu yidhi maanta aniga maxamed weeyaan ama maxamed baa magaalada maka joogi ama aniga unbaa joogi isagoo dariiqa kusii socda nabiga calayh salatu salaam meeshii uu joogay sacd ibn abi waqaas baa ka hor yimid uu ku yidhi yaa cumar xaggeed u socotaa wuxuu ihi maxamed baan u socdaa buu ihi ima aniga ima isaga buu ihi maanta maxaad ka rabtaa maxamed dee diin buu noola yimid aanu garanayn buu yidhi ilaahyadeedii buu naga ceebeeyey aabbayaasheedii dhintan ahlanaar buu ku sheegay cuqaladeediina sufahaa buu ka soo qaaday labadii wada dhalatay uu madaxa isku geliyey maxamed balaayuu nala dhex yimide maanta ama isaga ima aniga ama waa aniga ama waa isaga adduunka ka baxaya wuxuu ihi maxamed waxaad ka doonayso waa gardarre buu yihi maxamed tol iyo reer buu ka dhashee waxaad maxamed ka doonaysid aqalka walaasha inuu yaalla ma og tahay buu ku yidhi diinta maxamed uu la yimiday sawta aqalka walaasha dhex taallama buu ku yidhi sacd ibn abi waqaas markaa uu islaamay islaamnimada isagu uu qarsanaya uu cabsanaya nebigana cumar ka jeedi buu isleeyahayo bal akhafu dararayn cumar ha ku noqdo seedigii uu ka xesho saciide iyo walaashiina uu u naxariisanaye xaggan u jeedi buu leeyahy balaayadan socota oo nebiga ka jeedi deedna markaasuu uu soo kala wareegay aqalkiibuu soo galay markaa walaashii dibadda intuu soo socday buu maqlay markaa qur-aankii oo la akhrinayo khabaab saxaabi la odhan jiray radia allahu canhu ayaa markaa u yimiday oo qur-aanka ayuu barayay zawjka faatima zawjkeeda iyo iyadaba khabaab baa markaa qur-aanka barayay
وسورة طه أوائل كيغا انتي سو دغتي oo lagu soo qoray harig ayuu maaragtaan ku dul akhrinay u macnaynayay mar alle markay Faaduma maqashay walaalkeed Umar oo soo socda ayay aad u naxday Umarna nin adag buu ahaa nin adag oo aad iyo aad u adag oo aan waxba la marin karin buu ahaa dadna markaa bay qarisay isagii meel bay ku qarisay iyadii ninkeegiina way soo dhaweeyeen way fadhiisiyeen Umar baa ku yiri hunuunada nagu maqlaayay waa maxay buu waxba ma jiraan bay ku tireen maxaa jira isqabooji waxba maqlay sheegay buu aqalka waxba soo galay oo maxaa soo gali lahaa aqalka diinu Muhammad baa aqalkaad ku haysan oo qarinaysan Faaduma sheeg oo warqadaad waxaad akhriyaysan ii dhiib markaas uu doonay inuu ka qaado maaragtaan warqadii harigii uu ku qornaa maaragtaan quraanku way ka buuday markaa way kala buuday iyaduna dadna markaas seedigii buu dharbaaxa ku dhiftay walaashii buu dharbaaxa intuu ku dhiftay dhulka ula dhacday markaa bay ku tiri war waxaad doonta samee bay ku tiri aniga zawjkeyguba waan islaamnay ku tiri قرآن كان إلهينا كودي بمين نبيت رواية نين نجاسة تاي نجاس إما صوميرو إما سوي سيسو لبدا بدون بان قرآن كإلهي كودي بيناي وحلي وحد سمين كرت السماء دين تا إسلام كي محمد ونولي مدينة وحق توا كان نغني نما هبي كتك عمر واقع كبر يا مركز سيدي دول كولا دعي ولا شيء دول كو قدفتي إسقينا ما ضحك يوقف صدي مركزه اللي دين تتعب أوجل عند ذلك المقطع ولا شيء درباحي سيدي لابتو كجفر يستي إلهي عز وجل مركا قلبي عمر با إلهي جلعي وحريدي بها نخرية سوي سقابه وسوي سقاته مركا سيوديبتي عمر نري مقاله وحخريه وها مركا هربا لأن مركو أخري طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى إلى آخر الآيات مركو عمر أخري أيود أين محمد يجيبود عليه الصلاة والسلام قرآن إلهي مركو أخري بقلبي سيبا جلعي آوي محمد هالكوجوغا يجي خباب ومركا الله قريني ومعلنك مركا فاطمة الزوج كده قرآن كبريها أيا سرير تكسو واصبحوا يري أبشر بيري يا عمر حاليتو للنبي محمد عليه الصلاة والسلام أنا لبدا إذا بقول كم مغلا يسوع دعينيا أو لبا عمر متكود له ودينتم كعزب والنبي يقولها عمر بن الخطاب وعمر بن هشام وأبي جهل ويان عمر بن الخطاب وعمر الفاروق ويان إله لبدا عمر والله بنن أو قريش وجو جيس النبى بني بها يان لأن دينتم شخص جيسية شخص سخية أو غنية أي دينتم وحوق بنكر ولا ليال إله لبدا عمر متكود دينتم كعزب والنبي يقول دعادي أذاك وقول عليه بشار يسبو كيدي قعنت انتو سوق قبتي بو كان النبي صلى الله عليه وسلم وفرحي رسول كينو عمر ولا شيء وحبو يا لي لكن قلبي سيبا الى هاي فري قلبي جيبا الى هاي افر نحريستي مرقاسا حمزه النبي او قالو عمر با سو سودو سيفنا وات مرقابو النبي يقول يسو غلي انيغا اني كنا بنانك كو هدا مرقاسا لو غلي النبي صلى الله عليه وسلم وكبود النبي هلكاس عمر قبتي مرقابو كو اسلم يا عمر أسلم يا ابن خطاب اللهم اهده وعلى الدعوة يدعو نبي سكو دري ورنا خطاب إسلام بو نبي يدي وحاوني له عمر بن الخطاب قلبي ساده يسوجدي مركب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله اسلام مركب عمر وحو يدي مسلمين تمركب مقلن عمر وشهادنا تكبير بكل دفتان مركب يا رسول الله حق ما كنت أغنى هاي مسكومة تاغنين وكنت أغنى هاي أيكون باطل ما كنت أغنى قريش مسكومة تاغنين وكنت أغنى حق الله قرن ما يمانت وحي قدام بيا بناك وصل صار بوكيدي عزقي إسلام كابل عمي ديانا أصببا هوني فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها مالنتو عمر إسلامي إسلام كي عزي با أكرني مالنتو عمر خلافة إسلام كي وقبتينا دين دي إسلام كي أدونك كف الدو عدالة دي بأدونك ودن قادي دور كاسي دمر كو دين تكسوقاتين دور عجيبة دين تكولي دين وقادا سادرتيد guryaheena yaan diinta ku baranaynaa guryaha dhexdoodaan u badkeena diinta ku baraynaa gurigaaga adoo joogaa la rabaa ilaahay inaad xidhiidh fiican la yeelato jiil fiican inay soo baxaan waxa u sababa waa haweenku inoo hagaaga jiilalka soo socda inay naga xumaadaan ee lumaan waxa u sababa waa haddii haweenku naga xumaan inaga lumaan محورك دم بوحو كو وريغيا waa haweenka laana ilmuhu inta badan ma abu la jooga mise hooyada hooya
hooyo cilaaqo la leeyahay ilmuhu inta badan hagaaga aada hagaagtaan bulshada oo dhan baa hagaagi bay ka dhigan tahay haweenku banaanta ama xumaanta haweenku ay naga xumaadaan waxay ka dhigan tahay bulshadii oo dhan baa naga xumaatay ogaado naga lumaysa saa darteed baa waxay idhahdaan ducaadu hal nin oo weliya gabadh mu'minado ilaahay cilaaqa la leh kun nin oo awliye ka fadli badan tahay kun nin oo awliye ka fadli badan tahay kun gabadh mufsidadoo faasidada oo banaanka u baxdayna kun nin ayay ka fasaad badan tahay baa la yidhi sidaa darteed guriga adoo joogaa la rabaa inaad diintaada baratid ilmahaagana diinta ku tarbiyadaysid faatimata bintu muxamed radia allahu canha aabaheed muxamed calayhi salaatu wasalaam baa waalid u ahaa yaa ka sharaf badan gabadhaas maalintay dhimanaysayna dumarkii reer madiine korkooda taagnaa waxay kula dardaarantay korkeeda taagnaa sariir baa meydka lagu qaadayaa markaa sariirta banaanka loo saaro meydka dhaqdhaqaaqiisa ayaa maaragtaane la arkayaa waxay ku tidhi meydkayga raggu inay arkaan ma rabiye tala keena bay ku tihi meydkaygaad ku qarin lahaydeen hadda waa bacda mawtihaa bay ku leedahay yaanan meydkayga dhaqdhaqaaqiisa la arkin innakana maanta haweenkeennii waxa suuqyada fadhiya ee wax iibinaya waa gabdhaheennii waa la yaabay dee nacashkan unbaa naqaana annaku ee qofka la dul saaraya isagoo dhaqdhaqaaqayana la arkaya nacashka lama naqaano asmaa bintu cumays radia allahu canha zawjadii jacfar ibni abi aalib oo ardulxabasha markaa hijradii ka soo noqotay oo ardulxabasha ku soo aragtay naxashkan qofka sariirta lagu dhex ridaya maradana lagu dul xidhaya ku soo aragtay ayaa tilmaamtoo tiri nacash caynkaasaan kusoo arkay ardulxabasha markaabay tiri cali iyo inamadayda iigu sheega kaasoo kale aniga hala ii sameeyo hala ii diyaariye kii baa loo sameeyey cali iyo xasan iyo xusein zawjkeedii iyo inamadeedii iyo kaa maydhay waaa la cali baa maydhay faatima oo inamadeedaa maydhay iyo kaa qaadoo laxashka ku dhex riday iyo kaa marada ku dul xidhay kolkaasay banaanka ula soo baxeen iyadoo meelna ka muuqan markaasay dumarkii reer madiina u ducayn jireen ee odhan jireen faatima ilaahay qabriga ha u nuuriyo adduunka dusheediina wayna astureen ahlalbeytka nebigu nebi maxamed reerkiisu sida gabdhuhu loo asturan wayna bareen annakoo dhinsanna meydkayga way noo qarisay tiri faatima innakana maanta gabdhaheenni maanta ka warrama inaku maanta intiinan khayrka dhegaysanaysa intii diinta iyo khayrka iyo diinta jeclayd ee diinta danaynaysa baa tihiin laakiin maanta gabdhaheenni ka warrama maanta gabdhaheenni muslimaadka ahaa marka allah inoo dambi dhaafo allah inoo dambi dhaafo allah ina hanuuniyo waa zamankuna uu adag yahay fitantuna way badatay laakiin ilaahay hanu soo noqono bas makhraj fitanta waxaa lagaga baxayaa keliya waa maxay inaan diinteenna usoo noqono oo diinteenna aqaladeena ku dhex baranno oo zawjkeennana guriga dhexdiisa ku raali gelino oon awlaadeennana diin ku tarbiyadayno asmaa bintu yaziid bay ahayd gabadhii saalixadda ahayd inanteedii markay dhistay ay gelbinaysay hoynaysay ku tidhi dardaarankama dambaysaan ku siin bay ku tiri dhegayso cushkii aada ku jirtay waad ka baxday cushku waa aqalka buulka curfi waxay lahaayeen dadkaasi gabadhu ilaa 9 jir 8 jir ay ka gaadhayso ragga way iska dhex soconaysay laakiin 9 sano markay gabadhu madaxa la gasho xagga dambe hooyadeedii aabaheed ka fadhiisanaysay ma soo baxayn marka 6 sano ama 7 sano qiyaastii waxaa laga yaabaa gabadhu inay hooyihii aabba gadaashooda fadhido uun ay dibadda usoo bixinba hadday banaanka usoo baxaysana iyadoo jilbaab sidatoo aabaheed gacanta hayo ama walaalkeed gacanta hayo ama adeerkeed aabba la dhashay uu gacanta hayo ama abti hooye la dhashay uu gacanta hayo unbay soo baxaysaa bas markay habeenkii gabadha la hoynayay ku tidhi cushkii aad ku jirtay waad ka baxday ku tidhi aqalkaad caawa tegaysidna gogasha dusheeda waxaad ugu tegi doontaa shaksi aanad hore u arkin dhul u noqo samuu isaguna kuu noqoni
hooyo u noqo, aabbo kaluu kuu noqoni, walaashii oo kale u noqo, walaalkaayoo kaluu kuu noqoni. indhihiisa ilaali oo dhegtiisa ilaali oo sankiisa ilaali. markaa bay ku tiri saddexda hore waan fahmay, saddexda dambe i macnee. indhihiisa ilaali bay ku tiriyo markuu kuu imanayo adoo qurux badan ha ku yimaado farxaansan. dhegtiisa ilaali bay ku tiriyo hadal xun ninkaaga weligaa ha maqashiin. sankiisa ilaali bay ku tiriyo adoo udgoonu mar walba ninkaagu ha kuu soo hoyday ku tiri. jaamacad guriga jaamacada guriga jaamacada. asmaa binti abi bakar cabdullaahi bnu zubayr radia allahu canhum markii lagu soo duulo xajaaj ku soo duulay ayay ku tiri dacnii ucaaniquka, ii kaale bay ku tiri maanta kula macaanaqode. ciidan 8,000 oo ninba ku soo duushay baa la yidhi oo ku soo socota. waa dagaalna wuxuu u bareedhay haddee toole isagu. waa cabdullaahi bnu zubayr bnu cawaam. asmaana waa ina abi bakar weeyaan daata nitaaqayn. maalinta abi bakar iyo nebigu godka ay ku jireen waa gabadhii u adeegeysay nebigii abubakar cuntada u keenaysay weeyaan. geesiyad shujaacad ah. markaas ay ku tiri dacnii ucaaniquka bay ku tiri hooyo ii kaale bay ku tiri han kula mucaanaqoode. xajaaj sow kuguma soo duulin haa, haddaad adduunyo doonaysana isku dhiib, dee diintaada iibso. laakiin aakhiro waxaan kuu sheegayaa nebi maxamed iyo abibakar iyo cumar dadkii wanaagsanaa eed ka soo jeeday arki maysid bay ku tiri ugubt waad khasaarte. haddaad diin u dagaalamaysidna bay ku tiri jihaadka ku dhimo hana soo noqon bay dhabarkana ha soo jeedin. marxaba markaabay isku dhejisaan la yidhi. waxay ka dareentay dharka hoostiisa wuxuu gashaday biro. markaabay ku tiri birtana hoosta ka gashatay maxay tahay? wuxuu yidhi inay igogooyaan maan ka baqayaa buu yidhi. hadday i dilaan waa ciidan 8,000 waxay ugu soo duuleen, intaan karaya waan dagaalami. markaan dhacana waxaan isla hayeyna ku googoynine hooyadaa meydkaaga ha garataan isla hay buu yidhi. markaabay tiri neefka mar haddii la gowraco harika siibistu neefka dhintay may saamaysaa? ma saamayso. halkaa waxay tiri fuulaynima kaa muuqata iska saar bay ku tiri dagaalka gal. siduu u dagaalamayay 18 maalmood buu halkii ku dhintaa la yidhi. siduu u dagaalamayay keligii. asmaa binta abi bakar dad waxay soo saareen taariikhdu ay ka yaabtay siday ahaayeen. marka insha allah inakuna han dadaalno oo guryaheena diin han ku camirno oo awlaadeenna qur-aanka han barno oo dacwadda han ka shaqayno oo jamaacadada noo imanaya han istiqbaalna insha allah. soo diyaar ma nihin insha allah. allah inagu anfaco. hada wabillahi tawfiiq wa sala allahu ala sayyidina